بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ومحي جعيل ومحي استامها الله جعيل كدبته وليهي جعيل كفائدوين وحتر مليهي ومحي جعيل كأوجو قالسا أدونك ومحي جعيل كأوجو قالسا أدونك وأسألها أن دونيو بإذن الله الباري إنه وحكتها تابطو الله سبحانه وتعالى وقلان شيء جعيل كقيميه سا الله سبحانه وتعالى وإنوت المامي جعيل كوناقي سا الله سبحانه وتعالى وإنوت المامي إن جعيل كوحجر ويهينا وشي سوغان هل آيات باجدة أرنك إن الدرنسين كده إنتان أبوذا قلين ومحي جعيلك وحسلوني جعيلك وكالقعر جعيلك ونحريس جعيلك وداعبنم جعيلك ودريال جعيلك وكالسوني جعيلك وحشمت جعيلك والدلقات جعيلك والدرجة سره جعيلك والدرجة سره روحي الله سبحانه وتعالى وقارسينا ودريمي كرو مهمة ولايهي جعيلك هدي أي جرته قفك جعل وحاتر هذا الله سبحانه وتعالى أيام هدسكله الله سوقف قلبي كبيري أنيق جعل كيغا لأنه هو شيء قالي إن أذيك قفك جعل هذا سيقودنا وحن كسوكو بكرنو جعلك وادرين آدو قيمة سرايا درين كاس روح قلبي سأوك دريميو قفك درين كاس حقيقة سا قلبي سأيدكتو أيا وحا دريمي كرا وحا يهي جعل سيقود جعلك وحسلوني جعلك ونحريس جعلك وكالقعر جعلك ودرين معان درين كاسو قفك قلبي جيسا الله سبحانه وتعالى وكبيره جعلك ونولل آدي قيمة سريسا هدان وحكتابتو ومحاستامها لهبه جعلك دبتأه وليهي جعلك دبتأه واسيدا دشا صبر باريسا وكاله هو كردا اما نقسامه هو سيمع عناذا اسم قراريو هو قروح بدناذا اما دوغوبو حيسي سبوبتا walba lagama caajiso jacaylka dhabta ah qalbiga ayuu farxad geliyaa laabta ayaa ku xasisha niyada iyo qalbiga ayaa taba carabka u dhaqdhaqaaqa macaansigiisa nolosh ayaa soo dhawaysa farxad iyo liibaan ayuu xambaarsan yahay waa dugaashi aad u macaan badan waa nolol qiimo iyo qaayo xambaarsan waa loo xiisaa ee lagama xiiso waa neeca udgoon badan aadan ka daalaynin inaad qaadato waa har hoos macaan waa naruuro lagu doogsado waa ubax udgoon badan oo aadan ka jidsan waa daruur kuu hilaacda oo aad u dhibca macaan lamaana ku jecel oo aad jeceshahay haddii ay jirto waa in aad ku tiraahdo alla ayaa mahad iska leh allahaasoo qalbigaaga quruxda badan aniga jacaylkayga ka buuxshay intaana waxaan ku soo koobi jacaylka dhabta astaamaha uu leeyahay astaanta ugu muhiimsan waxa ay tahay inuu siyaado oo uu sii kordho uusan kaa soo noqsaamin xilliga haddii uu dheeraado inuusan kaa duugoobin ruuxa haddii uu kaa fogaado in aad dareemayso qofkaasi qiimaha noloshaada uu ku leeyahay haddaan u gudbo jacaylka faa'iidooyin iyo waxtar ma leeyahay haa jacaylka faa'iidooyin iyo waxtar waa leeyahay intaan kuu sheegin faa'iidooyinkiisa halkaan eray ila fahan barta iyo meesha uu ka soo uskamo oo uu ka soo beermo jacaylka waa guurso si aad jacaylka wax uga barato guurso si aad jacaylka u dhadhansato guurso si aad jacaylka u dugaashato guurso si aad jacayl ugu noolaato jacayl bilaa guur ah waa hilaac bilaa daruur ah jacayl bilaa guur ah waa roob bilaa dhibco ah jacayl bilaa guur ah waa ilays bilaa arag ah jacayl bilaa guur ah waa riyo bilaa hurdo ah jacayl bilaa guur ah waa dhibaato bilaa xal ah u guurso in aad jacayl ku noolaato ee ha u guursan in aad baahi baxdo u guurso in aad beerta jacayl ee ha u guursan in aad doobnimo ka baxdo u guurso in aad jacayl weheshato ee ha u guursan in aad guri ka soo toosto baro waxa uu yahay jacayl baro waxa uu kaa doonaya jacayl baro xaqa uu mudan yahay jacayl baro sida wax loo jeclaado baro jacayl si aad xaaskaaga ama zawjkaaga ama ninkaaga aad u tiraahdo waan ku jeclahay baro jacayl si aad ugu noolaato naxariis iyo kalgacal jacaylka waa naxariis jacaylka waa kalgacal waxaan kuu soo sheegay
jacayl bilaa guur inuu yahay dhibaato bilaa xal arrinkan waxaan kuugu cadayn karaa waxa ay tahay alla subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay suuratu ruum aayadda 21 alla wuxuu ku leeyahay wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma inna fii dhalika la aayaatin liqawmin yatafakkaruun alla wuxuu yidhi alla aayadihiisa iyo calaamooyinkiisa waxaa ka mid in idinka nafihiina uu idinkaga abuuray xaasas aad ugu fiirso in idinka nafihiina uu idinkaga abuuray xaasas saad ugu xasishaan iyaga xaggood intaa kadibna dhexdiina alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yeelay kalgacal iyo naxariis wajacala baynakum mawaddatan waraxma dhexdiina wuxuu dhigay kalgacal iyo naxariis alla muxuu kusoo gabagabeeyey inna fii dhalika la aayaatin liqawmin yatafakkaruun arrinkaasi aayaad iyo calaamooyin baa ugu sugan duulka fekeraya alla wuxuu yidhi nafihiina baa wuxuu idinkaga abuuray xaasas waxaad ka fahmi kadhaa jaceylka barta uu kasoo bilaaban karo waa guur marka adiga aad guursato baad waxaad bilowday in aad wax ka ogaato waa maxay jaceyl inta aadan guursan xitaa haddii aad tiraahdo jaceyl baa i haya qof baan jecelahay weli jaceylka wax kama aadan baran xilliga adiga aad guursato oo guur xalaal adiga aad guursato xilligaasi waxa kuu bilaaban kadha waxa uu yahay jaceyl intaa wixii ka horeeya jaceyl bilaa guur waa dhibaato bilaa xal haddaan kasoo gudbo jaceyl waa beer lagu waraabiyo alla subxaanahu wa tacaala daacadiisa jaceylka waa beer lagu waraabiyo u hoggaansanka alla subxaanahu wa tacaala jaceyl ka maran oo ka qaawan alla subxaanahu wa tacaala cabsidiisa waa hoog iyo jaxiimo jaceyl ka maran alla subxaanahu wa tacaala cabsidiisa waa murug iyo walwal jaceyl ka maran cabsida alle waa ciriiri iyo cud aad u daran baro jaceyl si aad u barato nimcadda weyn oo uu alla subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey baro jaceyl si aad u tiraahdo alxamdulillaah baro jaceyl si aad u jeclaato midkii ku siiyey qalbi wax jecel lana jecel yahay baro jaceyl si aad u dareento nimcooyinka alla subxaanahu wa tacaala baro jaceyl si aad uga badbaado mugdiga iyo ciriiriga ay leedahay qalbiga ka maran alla subxaanahu wa tacaala jaceylkiisa baro jaceyl si aad u tiraahdo I love you my Allah I love you my Allah allahayow aad baan ku jeclahay baro jaceyl saad u tiraahdo allahayow waan ku jeclahay baro jaceyl saad u dareento alla subxaanahu wa tacaala inuu ku jecel yahay baro jaceyl saa u tiraahdo I love you my Allah allahayow aad baan ku jeclahay allaha idin jeclaado jaceylka ugu qaalisan adduunka iyo aakhiro jaceylka ugu qaalisan waa Allah subxaanahu wa tacaala jaceylkiisa allah haddii aad jeclaato qalbigaaga wuxuu ka buuxinayaa jaceyl jaceylkaasina waxaad u qaadi qofka u habboon oo ku suubata jaceylkaasi allah ku siinaya subxaanahu wa tacaala jaceylka ugu qaalisan waa Allah subxaanahu wa tacaala jaceylkiisa allah haddii aad jeclaato isagana uu ku jeclaado inta adiga adduunkaasi aad joogto jaceyl qurux badan oo aad u qurux badan oo aad u qurux badan oo alla subxaanahu wa tacaala ku siinaya jaceylkaasoo nolosha adduunka ciriirigeeda iyo mugdigeeda iyo dhibaatooyinkooda kaaga noqda wehel jaceyl aad u xiisto aad jeclaato aad ku dugaashato aad weheshato allah ku siinaya subxaanahu wa tacaala bara jaceylka saad u tiraahdo allah iyo waan ku jeclahay allah ina wada jeclaada dhammaanteen wajazaakum الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد